oo ku waraysanayno hadaliyay iyo siyaasi weyn alla weyne oo la yiraahdo Buux Husen Laxdil oo xisbiga ka madaxa Somali Democratic Alliance. Buux Husen ku soo dhawow telefoonka. ودوي waxaan Buux Husen ka weydiinaynaa xisbiga aad maanta madaxa ka tahay ee ololaha siyaasadeed ka galaya Beesha leeyahay ilaahiina badooga waran xisbiga iyo waxyaalaha aad maaragtay aad ku hamadoonaysiin inaad uga qabatiin gobolka shirka KILILKA shanaad iyo dalka Itoobiya dhamaanba. وايي وحوي حزبنا للصومال ديمقراطيك اليانس فورس بروجرام ليهي بروجرامنا إنه بروجرامية دولية والدولية waxaa kamida in ummadda la horumariyo hadday tahay tacliin hadday tahay dhaqaale hadday tahay dhaqan in la horumariyo iyo programkiisu uu yahay haddii aan doorashada helada programka ani sheegay iyo ku soconaynaa waxa uu kala yeelanayaa waxa la yiraahdo horumarinta priority waxa weeye gobolkani waa gobol dib u haray oo Itoobiya dib uga haray weeyaan gobolka Soomaalida dhammaan weliba keenu city gobolka city aad iyo aad buu u liitaa oo wax laga qabtay ma jiro marka waxaan warta bundaanka siinaynaa caafimaadka iyo tacliinta laba waxa maaragtay siinaynaa waa xisbiga Somali Democratic Alliance xisbi muddo soo jira weey saan ognahay waa xisbi muddo soo jiray xisbi ololooyin badan ka qayb galay inkastoo maanta maaragtay loo fasaxay inay si ballaaran uga qayb galaan ololaha soo socda siyaasadeed sidee baad shacabka maanta ku nool KILILKA shanaad aad u tusaysiin in uu xisbigu maanta waxyaalo ka gedisan oo ka wanaagsan inuu u wado iyaga waxay ku garanayaan ciddii intii hore soo xukumaysay doorashada helaysay dadka ku jira iyo dadka ururkan ku jira ayaa kala duwan ururkan waxaa ku jira dad badan oo khibrad leh oo tacliin sare leh oo da'doodu ay gaarsiisan tahay dowladnimo nin dee maaragtay khibrad u leh ama bartay siyaasadda da'na gaadhay laakiin kolkii hore waxaa jiray in maaragtay ay dhalin yaryar oo weli aan baalugin siyaasadda u baalugin dhaqan u baalugin hiddo u baalugin yaa maaragtay yaa qabanaysay meesha taasina waxay keentay maaragtay in dhibaatooyin waxba laga qaban waayo way tahay da'dii maaragtay way tahay waa la ogsoon yahay horta waxaa ku tusaysaa gobolada kale ee jigjigiya dhinaca ka xiga sida u dhisan tahay iyo gobolka city sida u dhisan yahay gobolka city magaalada daradaba iyo Shiniile wadada yar ee 7 kiiloomitir u dhaxaysa xitaa ma dhisno dadku aad u liitaan laakiin waxaan leedahay xisbiga maanta ahaan KILILKA shanaad ka taliya lacag faraqaya maanta quwad ballaaran oo siyaasadeed ku leh Somali Democratic Alliance way ka guuleysan kartaa oo sidee uga guuleysan kartaa dhageystayaasha wax looga sheegi kartaa guusha waxay ku xidhan tahay dadkay ku xidhan tahay waxa kaloo ay ku xidhan tahay sida ay dimuqraasiyadu ay u hirgasho ayay ku xidhan tahay haddii markaa uu shicibkuna doorto waxa weeye annagu waxaan nahay da'dii dowladnimada maamulaysay baan gaadhnay oo day aqoon tahay marka waxa weeye dowladnimada waa la bartaa laguma dhasha waxa waa cilmi siyaasaddu waa dhaqaaluhu waa cilmi kolka waa la bartaa waxa weeye laguma dhasho imanka waa dhaweysay unbaa dhulkii haya waa dhaweysay waxa dhacday in dowladda Japaanka iyo USA khaasatan dowladda Mareykanka iyo European Unionku aad iyo aad ay u maalgeliyeen
horumarinta xagga gobolka city waxaa dhacday oo lagu maqlaa in lala wareegay lacagtaasi oo xagga iyo jiga loola kacay sideeba xisbigaagu arrimaha caynkaas oo kale ugu hortagi karaan ina maxayna ka qaban karaan inay aad iyo aad uga dambayso waxaa ka mid ah xoolo dhaqatada sidii loo gobolka city laba beero qura laga hirgeliyey iyo inta ka badan loogu soo qiimeeyey xitaa caasimada Addis Ababa maanta lala wareegay gobolada kale la geeyay sidee baad ugu hortagi kartid anigu xisbigeen ay ku xidhan tahay qorshaha iyaga ay tahay ku xidhan tahay wixii kolka aan aragno waxa weeyeen jigjiga kolka la tagay gobollo badan baa ayaa KILILKA leeyahay gobolada badan rag baa ka soo wada baxaya ragga ay dawlad sarfaysanaya marka hadda sida uu kala cilmi badan yahay oo wax kala qaadani sida uu kala karti badan yahay oo wax kala qaadani oo wax qaadani dawladda Itoobiya ma u malaysaa maanta inay dimuqraadiyad xalaala inay keento qololaha ay ku keento ay ilaaliso in lagu shubto amba inay timaado boob la boobo saxaaradaha ma laga yaabo dawladda Itoobiya inay diyaar u tahay waxa weeye Itoobiya diyaar bay u tahay laakiin mid baa iska jira horta dhaqan baa jiray soo jiray in 20 sano dhaqankaina waxa weeye wax boob iyo wax kala qaaday iyo kala bursa iyo maaragtay ururada kala iska xidhay iyo wax boob ka iska jiray dhaqanka caynka soo jiray iman kara meelaha qaarkood oo KILILKA shanaada waa ka fognaay aad bay ugu yihiin Itoobiya city baa u dhow laakiin anagu dhammaan city kama baqayno laakiin way dhici karaysaa laakiin Itoobiya waxay tiri doorashadu waa xor waa la soo galayaa kolka waxay noqonaysaa doorasho nabadgelyo ayay noqonaysaa oo free and fair ah mudane Buux Husen waxa go'aan lagu maqlaa dad badan oo ka cawda in ay KILILKA shanaad gobolka city uu ka mid yahay dhibaato ma ayna wax wanaagsan ay ka arkin maadaama ay jigjiga ka dheer tahay waxay aaminsan yihiin inay ka go'aan ay KILILKA shanaad city laga gooyo oo budgetkeeda iyo horumarkeeda ay gooni u raadsato xisbiga wuxuu ka qabaa fikradda way jirtaa ciisuna uu qabaa waxa uu qabana waxa weeye waxyaabaha uu tabanayo weeye dhibaatooyinka uu tabanayo haddii wax laga qaban waayo waxa weeye xeerku noo fasaxayaa waan ka go'aynaa KILILKA waana ku dhawaaqnay mar hore laakiin imika waxa weeye haddii waxyaabihii dhibaatooyinkaan soo sheegnay wax laga qaban waayo dariiqa unbay ku dambayni waa tahay laakiinse waxaa jirta dad badan oo KILILKA siiba city ka soo jeeda oo Djibouti iyo u haajiray waayadii dagaalada iyo anagu oo xitaa maanta dibadaha joogna maxaad oran lahayd kuwaasi sida ay gobolkooga iyo dadkooga u soo taageeraan waxa weeye arrintaasi waa run weeyaan waxa uu ka adagyahay kolka raggan KILILKA shanaadiyaa u tegiyey tala mataalo dad dawladnimo u baaluqayna meesha ma joogo oo wixii iminka 20 sano ka dambeeyey ciyaalkii waxbartada meesha jooga waa dhalinyaro fiican laakiin dee khibradii male aqoonsi ma yeelan karaan waxa weeye iskama celin karaan rag 78 jiro dawladda soo xukumi jiray oo KILILKA jooga ma u joogsan karaan oo qoon ay u joogsadaan male kolka dee meeshii niba banaan wajibirnaba kuwa jooga maaragtay hadday tahay dibadda kuwa tahay Djibouti hadday tahay meeshii niba banaan de waa runtaada Buux waa runtaada iga raalaho waa ka dhaxgale waxa dhacda maanta Itoobiya waxa la arkaa oo mid walba inay dhulkooga ay dhisanayso oo ay maaragtay dadka xitaa dibadaha u jooga waxa dhacda nasiib darro maanta kuweyn xitaa xagga ka yimid in ay xitaa ay si waxay
ka masaxan yihiin amba ka noqdaysan yihiin inay Itoobiya ka yimaadeen oo jirta waliba inta qurbaha diidanba inay ka hadasho amba inay wax lagala qabato sidee baad kuwa aad u dhiirigelin lahayd inay Djibouti ay ku wajahsan yihiin oo balaka yar gaabiyaan ay dhulkoogana ka warayaan رجعي وحوي يرجو لجوا واحد رجوي درشدين nationalist والله النقطة وحوي وإنه بقول لي الفكرة ودتكيس وحقوق قبنا ولا ترتميه هو خليل الدعاء إثيوبيان كدكتور وحقوق قبنا وإنه قلت سودان تعين ولا ترتمي كرو ودتكيس اسمه تحنو سكر الدباتوي أيسا انت دونها تو مارك سي هدي يخدين طبعا تسوقات وكان ينقول سيتي هنا يكتب الديان ظروفه وكله ليعلمك لكن ما الجيران رجل واحد نصيب قرر لقوم قناة وكلا وطان كسوك بكبيريو ورئيسي هنا سؤاشن إن واحد جرتا مانتا دليرتا مامولك وقتي قشا سيتي أي دقال علوس وكوها يان دقاكي الأضيادي أها iyo ogaaskii iyo xitaa inay weerar ku hayaan ay yiraahdeen baa la yiri annaga oo siyaasiya annaga maamulayna reerka Ciise marka uga baahnay waday dhaqameed taan maxaad kula tagi lahayd dhalinyarta fikradaha maanta xabaasan waxa weeye taasi waa garasho la'aanta aan soo sheegay weey khibrad la'aanta aan soo sheegay weey jaacibta dad birimagayda oo aan la heli karin aan waxa la oran karin sida boqorka oo kale marka weli rag uma baalogin oo arrintaas siyaasadii uma baalogin kaaba ka siisay inay maaragtay waxa ku hadlaan dhimashada iyagana taariikh xumo fool xumo inay sameeyaan waa garashooyinkan soo sheegay siyaasiga أساعته رجوا كسر رين كرا ومارك زي أمر زي كرا صلى عيال كلا سعيال أنكو دلعية ترى كوسية العقل كوسية وعين كايس كجرا بوز الشيء محاكي وين كوا هيستيقظ وأردت هذا بوز الشيء محاكي أنا يورتا ليش الدنيا هي وقتيها وقتي ما أنت إلى تايعتاي واحد نقول مقالة إن مجال أي شعل يرادو maamulka hoose ina lagu daray 3 nin oo xabashiya oo dhulka antikanaynda inay ka mid noqdaan maamulka magaalada ay shaca maxaa keenay taa oo shay ku yimaadeen waxaan maanta ma wajin marka laga yaabaa waddanka waxaan qabsaday ragta shabay baa qabsaday ragta shabay un baa iska celin kara marka waxay leedahay maadaama uu Ciise seexday dhulkiisii waa loo tashaday oo ilaa la qaato oo nala wareega loogu daray goos waxa ani ahaan la yaabay magaalada ay shaca aad baan u aqaana cidba waxa bashiyo degan ma jirto askar yar oo meesha joogi jirtay maanta inay ka mid noqdaan waxa loo yaqaano city councilka amba koosaga Weenka oo afafka qalan la yiraahdo dawladda hoose inay 3 ay u fadhido cidda u fadhidana ma garanayno waa arrin laga yaabo way masoo haysatay 20 sano wax jiliga ma marka maxaad u sheegi kartaa iminka dadka Ciise meel ay joogaan badii dadka Soomaaliyeed dhammaan sida ay dhulkooda ay u maamushaan وقال كسر جبجبي waraysigeena maxaad u sheegi kartaa oo maxaad kula talin kartaa waxaan kula talinayaa horta inay ku adkaadaan waddaninimadooda inay daafacaan waddaninimadooda meel ay joogaanba in ay iyaku taliyaan haddii dad kaloo Ethiopian xitaa la degan yahay inay iyaku talada haystaan iyaka in loo hayo ma aha marka taa Soomaaliya wala garanaysaa laakiin bay itaalkayga ku xiran tahay
دولة مارسة إثيوبيا دولة وين مركا Soomaalida si gaar ah ayaa la iskaga ilaaliyaa waa dadku waa la ilaa kolkaad wax weeyeen dadku waxa way garanayaan laakiin itaal iskaga ilaaliyaan iskaga daafacaan bay leeyihiin baan u malaynayaa dad badan oo imika wax bartay oo khibrad leeyan doonaya jira tahay waqtigeega ayaa la hagaajin doonaa taa imika waxba lagama qaban karo وما صدقي البوح حسين وبوح حسين وكمدحا حزبيغا Somali Democratic Alliance waxaan gedadahaan aan kula talinayna dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan kilalka shanaad khaasan city inay si aad u soo baxaan oo ugu codeeyaan aad iyo aad baad u mahadsantahay Buux Husen Laxdil. Waa maasani